Somaliland hanolaato Somaliland hanolaato gobolka Sanaag hanolaado Ceergaabo hanolaato idinkuna noolaada walaalayaal waxaan aad idinka mahadnaqaynaa xisbi ahaan iyo wafdi ahaanba soo dhaweynta muddo iyo miisaanka leh intii aanu gobolka Sanaag joognay waan saddex soconnay oo dhan meel walba gaar ahaan magaalada Ceergaabo iyo maanta beertan saas ugu soo baxday nuura aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr qodobka labaad doorashaynu galaynaa bisha 13 waxyaalahaanu doorashada u galayno waxa koow ka ah inaynu Somaliland midayno oo wixii calooshooda isu furrayna qalbigooda isu furro oo dalku noqdo mid keliya oo midaysan oo wax wada qabsada anigu murashax ahaan gaar ahaan waxaan miisaanka saaraya gobollada Sool iyo Sanaag bari oo muddo 20 sannadood ah aan wali qalbigooda iyo calooshooda aad ugu furray Somaliland barkood qaarna wali ka wanaacsan yihiin oo u qabaan dawladda cid gaar ah dhisato oo looga horreeyay waxaan doonaynaa inay ka mid noqdaan oo taladooda iyo cududooda iyo caqligooda ku soo kordhiyaan hawlaha dawladda Siinaaya bilowday shirar waaweyn baa laga galay awr boogays baa ka mid ah kii u dambeeyayna kii Cali Khaliif kaga mid oo Somaliland buu ahaa ninkii u dambeeyayna aan ku soo xareynay waayo Somaliland jiri mayso Somaliland noqon mayso Somaliland ay ka maqan yihiin ama ay ka cagajiyayaan Sool iyo Sanaag bari ma soconayso Sool iyo Sanaag bari haddii aanay qalbiga u furin haddaanay niyadda u qaadan haddaanay ka hawlgelin haddaanay ku qancin dastuurka haddaanay ku qancin waxa la qabanayo Somaliland waxba ka maqan taasaanu aaminsannahay haddaanu kulmiyanahay taasaa dawladda Siinaaya ka hawlgashay taasaanu sii hirgelinaynaa haddii ilaahay idhaahdo gobollada Sool iyo Sanaag waxaan leeyahay dadweynaha ku nool horta sinaba dad haddii alla yidhaahdo waxbaana laga haysaa ama dawladda cid baanu uga maagaynaa waar ma tihidin marka si walba loo eego Soomaali idinka ugu badan Soomaali idinka ugu qabweyn taariikh ahaan dadkii talaqabanka ahaydeen intaaba way u baahan tahay Somaliland oo waa idinku rabnaa waxaananu doonaynaa inaad halkiinii soo gashaan kaalintiinii waxaan liya waxa ay ku xidhan tahay arrintaa lagu helayana kulmiya ahaan intii horena waa qabanay haddana waa qabanaynaa walaalayaal haddaan reer Sanaag tihiin waxaad tihiin magaalo weyn taariikhi ah dad badan ku dhaqmo anigu haddii aan murashaxaan ku soo baxo doorashada reer Sanaag dhex baan u ahado aniga waxba qof ahaan reer Sanaag wax alle waxaan naga dhexeeyo isku riixaynaa ma jiro waayo dadka waddaga had iyo jeer waxbay kala sheegtaa waxbay isku riixaan wardaanu reer Sanaag dhex baan hortaydina ina caatihiinba waliba amaana mikrofoonkaan ayaa waxaa leeyahay haddaan cid u bornaayo amaan ciid u helaanayo Sool iyo Sanaag bari baan uga nuglaanaya Sool iyo Sanaag bari ayaan u helayaa waana siday tahay dhaqanku siduu yahay wey kow idinkaa ka ahaanaya wax laga dhegaysto erayaa waxaan ugu dheeraaday waxaastee ilaa tagaa sagaal ay naga maqnaa oo aynu doonayno dhammaystirno ee hadda bilowhi waa arrintaa nabadgelyada inaynu soo xidhnay xadkeennii qodob baan ku darayaa dad badan baa u haysta quladii sarabta ahayd ama dadka qaarkii inay necab yihiin Soomaali ragga Somaliland dowladda ku dhagan baa ka mid ahay taa micnaheedu ma aha inaan Soomaali diidanahay Soomaali baanu ku faanaynaa Soomaali baynu nahay walaalaynu nahay shalay waynu midownay dad baynu isku xignaa dhibaatadoodu wayna dhimaysaa dhibaatadoodu way dhimaynaa laakiin waxaynu leenahay haddii wixii aanu wadisay dowladdii xilka inaga dugtay hadday hirgeli weynay haddaynu isqaban weynay hadday ilaa maanta 30 sannadood aan dhibaato ku jirtaa walaalayaal waxaynu Soomaali ku dhisaynaa oo wax ku qabsan karaynaa iyadoo labadii Soomaaliyeed ee midowga gaarkeeda loo soo dhiso warbar haddeega 28 sannadood waxaan lahayd war Soomaali midnay way dugtay Soomaali midba gaarkeeda loo soo dhigo markaasay wax istarayaan markaasay qabsoonayaan walaalayaal waagtii maanta kuntu waxa ka socda walaalayaal waynu u ducaynaynaa dhibaatada lama jeclin wixii ku dhacay waa ka xunahay waynu ka tacsaynaa 450 baa shalay ku taxawa
وتدكينا وكتب غرينا لكن سنة نهاي وحبي سوتر كرئيس مقاصد waxaan wax u tala karnaa Soomaaliland oo noqotay dawlad xor oo caalamka aqoonsan yahay oo iyaguna u gudbato ceelka soo saarta ilaa iyo 20 sano eraygaas aan u taageernaa marka loo eego Soomaaliya jecel Soomaali sugeeyay soo aasasay Soomaaliland baahay markii isticmaalka la eriyay markii Soomaali xor doonaysay dadkii gudtaday naftooda u huray ku dhintay waxay ahaayeen Soomaaliland oo dhan bar ilaa galbeed maanta Soomaaliland Soomaali nabcayn laakiin duruufaha yimid waxay noqotay xeerarka caalamka ama jiiri karo oo mid walba dalgaar u noqday Jabuuti waa dalgaara oo Soomaaliya Itoobiya waa dalgaara oo Soomaaliya Kenya waa dalgaara labadeedii Israaciil kaarbaa ku dhacday oo naga duntay marka inaynu teeni gaar u dhisno iyagana u gurmano inagoo Soomaaliya jecel war marka hoosta laga xariiqo oo dadka oranaya u qaadanaya rag baa wax la carraaya wartaasi ma jirto tala guud baa la eegayaa qodobkaana waa xariiqaya qodobka saddexaad xukuumadda Siiraayo hogaaminaya 89 mashruuc ayay ka dhistay gobolka Sanaag iyo Baran waa 89 mashruuc qorayihiin xukuumadda halkaas ku haya mid walba halka dhisay wax laga qabtay wadada ceergaaba ugu weyn isbitaalka ceergaaba ku xiga waxa ku xiga 77 iskuul baa ku xiga baarinta hore iskuuladu halkan 10 sano ka hor markii ay kulliya yimid 110 meelahaas ay maanta waa 200 dhow 77 iskuul oo dhexe hoose iyo secondary baa laga dhisay waxa laga qoray 6 riib baa laga qoray 6 riib inta in lagu barkadana waa laga qoray maantana waxa la furaya cusbaalku weynaa ceergaabo qorshahaasaan haynaayo noo socda waanu garanaynaa wixii qaldawana waa saxaynaa qorshayaal cusubna waa haynaa dalka oo dhan iyo Sanaagba kulmiya wuxuu doonayaa codkiina ka doonaya wax qabadka iyo qorshaha soo socda iyo waaya araga kuma doonaya mala awaal iyo qabiil baan ahay araga maanta halaysiyo iyo reerka iyaga cod doonaya ma rabno reer ma hogaamin kara dowlad qorom ma hogaamin karta Soomaaliland oo suuq u baahan socon kara kulmiya taasuu hibsanaya Soomaaliland oo dhan wuxuu isleeyahay meel isku xisbiga kulmiya waxa aasaasoo dibadooda Soomaaliland oo isu dhaq waa xisbiga kaliya ee markii la aasaasayay bari ilaa galbeed aasaasayashiisu ka koobnaayeen aqoonyahanka iyo siyaasiyiintii Soomaaliland oo kow ka yahay Fagar Maxamed Axmed oo laba ka yahay Siiraayo oo saddex ka yahay Cabdiraxmaan Cali Soomaaliland labada koorayaasheeda oo dhan baa sidii baan Soomaaliland doonaya maaha qabiil maaha laba reer maaha saddex reer waa Soomaaliland oo dhan ninka kulmiye ku soo biiraya ama qosinaya Soomaaliland oo dhan ku soo biiraya taasoo lagu haynaayo ku wada mustaqbalka iyo Soomaal xisbiga kulmiye ugama jeedo kursi ku gaar oo ku walaalayaal anigu murashax uma inaan kursi helo oo hebel la yiraahdo magac la yiraahdo ma ihi kawma socdo waxaan u socdaa qadeedii Soomaaliland oo inta uu soo joogay halkii ay higsanaysa inay gaadho Soomaalida kale wax u tarto caalamkana wax u tarto gobolkana wax ka tartayaan doonayaan ma doonayaan meel yar oo socdo maaha xisbi amaanta kursi ku gaar maaha waxaan doonayaa inuu xisbiga ANC oo kale xisbiyada caalamka ee 200 sano jira ee la iska dhaxlo ee qaranka oo soo doonayna waxaan ku soo gabagabeynayaa reer Sanaago waxaanu maanta ku codsanayaa codkiina 13 annaga oo qorshaha ku socda oo wixii aanu qabanay wax ku doonayna oo qorshaha iyaga wax ku doonayna oo aragtida aan sheegay wax ku doonayna aad iyo aad baa mahadsantihiin barakallahu fiikum wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh